marka nabi ciise la inaga xigo saan uga sheekaynayno ugama sheekayn karaan bal hadda waxaad weydiisaan idinka marka nabi ciise xusaysaan si aad u xustaan quraankeenu soo u xusay cid u xusi karta ma jirto wararka hadda sida isu dhaxmariyaan waad u jeedaan hadda social media wada buuxaba waxa dhici kartaba inagoo joognaba inuu yiraahdo war degdeg ah nabi ciise soo degay marka hadduu nabi ciise ugu soo dego yani waa aakhiru zamankii oo si dhamaan raba quraankeena wa innahu la ilmun li saa'ati saa'ada qiyaamo ogaal u yahay fala tamtaruna biha ka shakinina khudbaduna waxay ku saabsanayd dabcan khudbadu waa isbuuci oo muslimiinta waxa loo jideeyay inay isbuuciiba mar isu imaadaan oo khudbo loo jeediyo ahmiyad weyn in muslimiinta ugu fadhidaa khudbadu sababtoo ah waxyaabaha waaqaca markaas ummadda haysta meeshii laga toosin lahaa waa masaajidka shirkaas isbuuciga ah ama toddobaadlaha ay muslimiintu isugu imaanayaanna inay kaga wada hadlaan arrimahooda wixii u hagaagsanna ilaahay uga mahadiyaan wixii ka hadlaysanna sida ay uga tashan lahayn si ay u hagaajisan lahaayeen ayaa loogu talagalay marka maadaama sanadka hadda uu dhammaanayo oo 2021 ka ah 2022 inoo bilaabanayso sanadkana magaciisa uu ku fadhiyo uu ku qotomo sanadka miilaadiga sanad kale uu inoo jiraa oo taariikhda hijriga la yiraahdo marka labada taariikhoodba horta ilaahay baa iska leh oo waxay ka dhashaan waa habeenkii iyo maalintuun midna waxa la xisaabiyaa maalinta midna waxa la xisaabiyaa habeenka oo midda hijriga ana bishi way bilatay ayaa la yiraahdaa midka miilaadiga ahna taariikhdu waa imisa maanta way dhamaatay iyo way bilaabanaysaa habeenkii iyo maalintana isbedelkooda ayay ka dhashaan oo ilaahay baa ugu talagalay والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون يعني وآيات إلهي أو قرآن كون وشيء marka maadaama sanadkii uu milaadi yahay maalmahana yani idinka balad kan joogtiino yani waxyaabaha anaga Soomaali markaan joogno aan agteena aad uga jirin ayaa idinku la nooshiin waana in la soo noolaado yani taariikhda saasay soo ahayd inagu Ilaahay si gaar ah noogu nicmeeyay oo gaar u yara go'an oo diriskeenna iyo dadka diriskoo dhan ay wada yani dad muslim ah walaal ay wada yihiin laakiin caalamka in badan oo kamid ah waa la wada nool yahay diriskana waa muslim kaas ku xigana muslim maaha kaas ku sii xigana waa wax kale yani waa bini aadan isku dhaxnool adduunka ugu badan marka la joogo miilaadiga ama nabi ciise dhalashadiisa hadda khudbada saad arkayseen kulligeed waxay ahayd quraan wax kale kuma ana darin aayada quraan baa idin akhriye oo ah nabi ciise iyo wixii ku saabsanaa waxaan saa u yeelayna waxay tahay dad aan nabi ciise shaqo ku lahayn ayaa raba inay inaga qaataan dadkeena qaarkiina si loogu celcelinaayo yaa waxa laga yaabaa inayna u malaynayninba nabi ciise inuu inaga yahay inay inaga siiyaan aan ka cabsana marka oo markii la soo qaado nabi ciise yiraahdo malaha inaga inama khuseeyaba Soomaalidii horena way dhigi jireenoo markay wax intay garan waayaan loo sheego oo ay rabaan inay dhahan wax macquul ah ma waxay dhahan war waxaan idin weydiinay goorma nabigeena ciise loo rogay macnaha waxaan naqaana bay ka wadaan marka nabi ciise waa nabigeena horta wax nabi gaar ah oo ay dad kale leeyihiin ha u qaadanina waxaan soo qaadanay marka qissa ah berigii muslimiinta ay soo hijroodeen oo maka lagu dhibaayay oo xabashida ay imaadeen geeska Afrika yaa Quraysh wafdi intay soo dirtay yaa waxay ku yiraahdeen boqorkii berigaas joogay oo Najaashi ahaa niman waxa naga soo baxsaday diintaadan aan soo gelin annaga taaniina ka soo baxay ciisana war la yaab la ka sheegaayo oo inuu adoon ilaahay yahay sheegaya kiristaankuna waxay u haystaan qaarkood yani inuu asagu yahay ilaahay haddii la yiraahdo marka waa adoon ilaahay waxay u malaynayaan nabi ciise in la caynaayo ilaahayna quraanku wuxuu ugu leeyahay lan yastankifa almasiixu an yakuna abdan lillah nabi ciise ka kibri uu maayo inuu adoon ilaahay yahay adoon ilaahaynimadu waa sharaf ee caytin ma ah laakiin ayaga waxay u qaateen inay caytin tahay markay ku diraan asxaabtii way tashadeen waxay yiraahdeen haddii su'aalahaas kale weydiiyaan maxaan sameeynaa waxay ku tashadeen wixii ka dhacay inaan waxba ka qarinin ka gabanin sida quraankeenu uu sheegay nabi ciise shaanigiisa inaan ugu waranno markaas markii meesha la keenay wuxuu ku yiri Najaashi asagoo soo kulmiyay dadkii taageerayaashiisa ah ama kitaabtii hore yaqaanay bal iiga warramo maada taquluna fi ciisa nabi ciise maxaad ka aaminsantiin markaas wuxuu waxaan ka aaminsanahay wixii nabigeena uu noola imaaday oo ilaahay uu ku soo dejiyay markaas wuxuu wax ma ka wadaa ma ka haysaa waxa nabiga lagu soo dejiyay oo arintaas ku saabsan markaas wuxuu waan ka hayaa markaas wuxuu bal akhri aan dhageysanay markaas wuxuu akhriyay sadran min suurati maryam suuratu maryam la yiraahdo magacaas buu wadata nabi ciise hooyadii maryama suurada wadata
bilowgeedu ku akhriyay suuradaas waxay si faahfaahsan uga hadlaysaa nabi ciise dhalashadiisa oo ilaahay wuxuu ka bilaabay wadkur uga sheekee wadkur fil kitaabi maryama kaga sheekee idin tabadad min ahliha makaanan qasiyan reerkeeda bay ka tagtay meel ka durugsan ayay aaday aayadaha akhrinaya tirada badnaa nabi ciise dhalashadiisa ku saabsanaa ayuu ku dul akhriyay intuu ooyay najaashi iyo intii agfa fadhiday waxay yiraahdeen arintan aad noo akhriday iyo nabi ciise wuxuu uu la yimid hal dariishaday ka soo wada baxeen maxaa yeelay ilaahay baa sheegaya kana waa qur'aan nabi ciise wuxuu la yimid ilaahay wax uu ku soo dajiyay nabigeenuna ka horeeyay oo nabi u dhaxeeyay ma jiro wuuna ku bishaareeyay wa id qaala ciise ibn maryam ya bani israa'iila inni rasuulullaahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawraati wa mubashiran bi rasuulin yaati min ba'di ismuhu ahmad nabi ciise marka xigmadan aabala'aanta maxay tahay oo ay ku fidnoobeen yahuuda iyo kirishtaankuba aabala'aantan quraanku wuxuu noo tilmaamay waxa loogu talagalay dadku waxay la qabsadeen haddii ilmo uu dhalanayo ilmo haddii ilmo la dhalaayo taariikh dheer waxaa soo socotay waa in loo helo aabbe iyo hooyo intay arki jireen ilmaa dhashay aabbihii waa kuma waa hebel hooyadii waa tuma waa hebla saasay yaqaaneen waxay la qabsadeen marka haddiiba la dhalanaayo laazim waxaa laga rabaa in hooyo iyo aabba la helo awooddii ilaahay qudradiisii way iska iloobeen dadku si marka loo tusiyo aabbahan iyo hooyadan aad u malaynaysaan ayaga bas in laga dhex dhasho hooyo keligeed oo ilmo dhalaysa ayaa la idin tusinaa leeyahay walinajcalahu aayatan linnaasi wa raxmatan minna wa kaana amran maqdiya waxaan u keenay si aan uga dhigno aayatan linnaas caalamkoo dhan ayaa aayad looga dhigay oo ah haddaad ka sii jirteen ama taqaaneen hooyo aabbaa wax dhala maanta waxaan idin tusaynaa hooyo keligeed wax dhasha markaasaa maryam binti cimraan ayaa caloosheeda lagu abuuray markay uuraysatay oo fooshi ay qabatay ayadoo meel ku cibaadaysanayso oo cibaado u go'day oo wadaad ah ayaa fooshi qabatay markaasi walwal ilaan waxay bulshada dhibaatada ka qabsan doonta iyo duruufta haysa iyo caloosheeda arrinkan lagu abuuray maxay ku hadli doontaa markaasi waxay ku calaacashay yaa laytanii mittu qabla hada allah intaanay qabsanin ka hor maxaan isaga dhiman waayey wa kuntu nasyan mansiya oo wax la soo qaadaba aanan noqonin wax la iska tuura aan noqdo saasaa ii ficnaan lahayd markaasaa lagu qalbi qabuujiyey saas ma ahe adigu shaqadaada lagu diray la qabso wax dhiboo jira ma jiro hadday ku dhaan xageed ka keentay aduba ha hadlin fartuun ugu fiiq sidii bay ula timid markaasay say ka yaabaysaa ku dhacday markaasay kala kor dhaceen canaan yaa ukhta haaruun maa kaana abuuka imra'a sawin wamaa kaanat ummuka baqiya war heedhe xageed waxaan ka keentay aabbaha nin xun muuna ahayn hooyadaan mid xun maysan ahayn waxay ugu duur xulayaan oo u qarinayaan adigaa xune qoyskii waad khilaaftay xageed ka imaatay fa ashaarat ilayh markaas waxay dhaheen hadana kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiya saan ula hadlayna asagii ba hadlay markaas wuxuu nabi ciise inni cabdullaahi aataani alkitaaba wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan aynama kuntu waawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xayan wabaran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiyan wassalaamu calaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcatu xayan dalika ciisa bnu maryam haddaad rabto nabi ciise inaad ogaato wakaa nabi ciise lagu yidhi oo ah cabdullaahi innii cabdullaahi waa addoon ilaahi ilaahi maaha asaga ibnullaahina ma aha ilaahina ma dhalin waxay dhaheen marka waa yahay yaa dhalay markaas yahuuddii waxay yidhahdeen sharci darru ku dhashay kiristaankuna waxay yidhahdeen aabba in loo sameeyaa la rabaayo aabbihii waayo waxay dhaheen yaa kale ilaahay baa dhalay dhehen subxaanahu camaa yaquuluuna culuwan kabiir ilaahay baa dhalay dhehen waa wiilkii ilaahay labadooda way gafeen ilahay wuxuu marka fakhtalafa alaxzaabu min baynihim dhexdooda iska khilaafeen midna si xun ayay dhaheen kana si kale dhaheen labadoodaba xaq ma ayna sheegin markaasaa waxaa la yidhi inna mathala ciisa cinda allaahi soo lama yaabanidiin hooyo basaa wax dhashay maxaad kala yaabaysaan hooyo keligeed inay wax dhasho waxaaba lagu hayaaba ood rumaysan tihiin hooyo la'aan iyo aabba la'aan oo la dhashay yaa daran marka mid baa wuxuu dhashay hooyana male aabbana male way rumaysan yihiin waayo waa nebi aadam kirishtaanka haddaad weydiiso nebi aadam yaa dhalay haddaad dhahdid waxay ku leeyihiin waa la abuuray carraa laga abuuray way og yihiin kulli way wada og yihiin aabbihii away aabba male hooyadiina hooye male haya nabi ciise oo umowba nabi ciise hooyadii waa la yaqaana waa maryam binti cimraan aabbihiina may dhahaan marka aabbihiin aabba male oo ilaahay baa abuuray ma dhahayaan waxay leeyihiin aabbihiisu waa ilaahay oo maryamo ayaa hooye u ah ilaahina aabbo u yahay
قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون waxa la isku hayaa marka xaqiiqo taagantay waxa la isku hayaa inaga muslimiin hadaan nahay sidii ugu toosneed ee xaqiiqadeed ayuu ilaahay inagu toosiyay fahada Allahu alladheena aamanu lima ikhtalafu fihi min alhaq biidni wallahu yahdi man yashaa ila siraat mustaqim sida ugu toosan maxay tahay sida ugu toosan waxay tahay ilaahay waa keligi wahdahu la sharika lahu ayaga waxa lagu kari laayahay ilaahay waa keligi kale dhaha waxay ku dhahayaan waan ognahay ilaahay wuu jiraa koow ilaahay wuu jiraa haye waa hal haye laakiin haddana saddex ayuu mid ka yahay saddex ilaah ayuu mid ka yahay nabi ciise yani ilaaha khaaliqa koow maryamo oo nabi ciise dhashay labo nabi ciise naftirkiisa saddexdaas waa tii marka imaamka quraanku inuu akhrinay laqad kafara alladheena qaaluu inna allaha thalithu thalatha haydan ilaahi saddex ilaah buu mid ka yahay saas waa lagu gaaloobaa wama min ilaahin illa ilaahun waahid hal ilaah bas ajira maxaa la inoo diray inaga inaan u sheegno marka waxaad ku tirahdaan baa qul ya ahlal kitaabi ta'alu إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كاليا عن كود هذلنا كلمة إنه دحيسة أو أنا جن أنا جار أولهين إذن كنا إذا جار أولهين كلمة ده سأنسوق معنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أو ألا نعبد إلا الله إلهي كلنا عابدنا روح لو كلا يكور إلهي كلنا عابدنا وهذا الدين شيء جناه وأنا مصنع دانه إلهي كلنا عابدنا انتاجناه وحن إلهي قدر إنه مجره وحده لا شريك له كاليا أنت سوق معنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أو إلهي كلا عنا سميسن أيو إلهي كلا سميستين ربيال كلا سميستين ما هي ربيال شاس علماء ذوذا أيو حكالكتين ربي أو سير ربي يقول لي تنادي نقول تكنا ربي النمطكو تكشد كلية معه ربي بانو تكنا بس معه عدي بن حاتم الطائي صحابي جليل كأها يا آيات النبي مركو آخره اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لمن كان سي ربيال أي سميستين مركي ليري يا حوري ما عبدوهم يا رسول الله ما ينعبد جرين مركز عبادة سوء فهم سنة ساعة هم بالله ودقوا وحالي وح إلهي حاران تنميي مو حلاليان وحاران أهنا مو حلاليان ما نكر عن أرنتا سيدة مركز النعم تاسوي جرتا إن علماء ضوضوا وح إلهي وحاران كتنجي أيه وحلالين آيان وحلال أهنا حاران وقد جايان أيقونا ويا لنا حيلين هيه علماء أساسنا تري تاس ما دعضي مركز يقولها وين دعضي فتلك عبوديتهم سلا عبادة الشيء جاي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم لله وأساس إنك مسلمين هذا التحليل والتحريم إلهي بس عسكره روح عن كي يلينه وإلهي وحاران ترمي خمرة حارانة خمرة وحاران هذو مدينو ما دوير هذا خمرة ذا نقاله قريب كتاي ورشدان صوص ما يسنى إن خمرة ذا يلعب دوير هذا ما كيلينه شيخ كسدوية وح كسدوش هدان كيلنا وح إلهي حاران كدقي حلالين تهذا أن كل رعنه وأن عابدني وين معنا ما كان ماشى الإسكوايس وحيتها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يينا إنك نحن أن ربي يالي سنة قننا ربي واحد عن لنا هاي ربي قاس عن أقلانه ساس كلها الليل وحكتر هذا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون هدي ديدانا فإن تولوا هدي ديدان سوما ويكجسان فقولوا حكتر هذا اشهدوا هذا مرخاتك هذا بأننا مسلمون أنك مسلمين أيانا هاي بس وابلك الله بحيب مركز النبي عيسى اللي نجا محيجو سان وقش شيكين إنه وقما شيكين كلام بلاد واحد وديسان يديك مركز النبي عيسى حسين سان سيادو حستان قرآن كانوا سوء حسين عد حسين كرتم جرت ملاسي أرور دايان مركز واحد جراع عيان ملاسي سعون عيان واحد النبي عيسى وشغوصهم كل هين مركز ماشي وحكم أن لف على يتوبون كان مغلى جرتين لف على يتوبون كهايان إن إلهي وحنا وافجي مركز سيد توصليت أو إنه نبي عيسى إلهي يعني صادري أو رسول وياه وان رميسنا إنه سن ابن الله أهين إنه سن محيد إلهي أهين أيان كان رميسنا أو يهي سيد القرآن كنا وشيء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد مركو رسول عدي مركو حدا كربا ما دام أنت أجوبتان إذنك فرصة هيستان هورت فرصة في عنا هيستان فرصة ده سوء إن تكسو إسلام إنسان ده عن إسلام أهين أنا والله أنا هموت عن سوء إسلام النبي وحابلين وقد عدنا أنه صنم كلا قبيل ليراه
kaas annagana halaagana baabi'iyey laakiin hadda wax la soo islaamin oo inta dariska u tagtaan oo maxay ahayd la fariisataan oo la sheekaysataan oo quraanka u fasirtaan oo luqadooda aad kula hadashaan yani hawweyn waajib waxa idin saaran runtii yani la noolaanshaha la joogitaanka dad aan muslim ahayn aad la joogtaan waajib ka badan inta qof aan muslim la noolayn saaran baa idin saaran idinka maxaa yeelay dadka muslimiinta ah waxa la yiraahdaa qolo walba meesha ay joogto waajibka koowaad ayuu ku dhacayaa haddii ay ka soo bixi waayaan ayuu muslimiinta kale u gudbaayaa laakiin inta ayagu ka soo bixi karaan ayagaa laga rabaa marka beledkan waxaa laydinka rabaa diinta qur'aanka saas intaad u akhrisaan inaad tidhahdo waramayaho kaalaya intooda wax garadka ah haddii si tartiib wax loogu sheego inay soo roonaadaan oo mucaamalada ay wanaagsan ayaa dhici karta qur'aankaana inoo sheegay waxa dhibka badan waa yahuudda yahuuddu waa dad xaaqidiina waa dad dhib badan laakiin nimanka la yidhahda nasaarada ama kiristaanku way ka sokeeyaan waatuu qur'aanku leeyahay latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا وكوي سوء إسلامي حلق النبي عليه الشيكين آية حلق السنة ويدعي كرتهديه هلان فرصة لغو سوء إسلامي مركا واجب كان تاقاتان وضو يرتان وضادان كان النبي عيسى الشيء أنك عيدين هينه meesha aad u malaysaa inay kama jirtee meesha idinka jirta annaga idin hayno oo idin taanaynayna meesha uu ka soo bilowday ilaa meesha uu ku dhamaado annaga idin sheegayna hadda xaguu ku maqan yahay xaalkiisu siduu yahay ayuu maxay aaminsan yihiin wuu maqan yahay qaarkood waxay aaminsan yihiin si uu nabi ciise u soo laabto yahuuda ay ugu dirtay waxay yiraahdeen nabi ciise soo laabashadiisa waxay ku xiran tahay inaad muslimiinta aad u dhibtaan kullama muslimiinta aad cadaabtaan wuu soo dhaqsanaayaa ku dhaqsada waxaas ka dhaadhiciyeen markaas muslimiinta la rafaadiyay in saas la yiraahdo war saas ma aha نبي عيسى أنا وحنا آمنسناه يعني إن الدلين سياه إلهي وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم من علم ما لهم به من علم يعني ما يقانان وينسكا مرين آيان وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما آخر الزمن كانوا إيمان دونا قرآن كان شيء وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم نبي عيسى وقال إياه ساعة قيام أيو كسر رينايا هدو سودجو علامته هو ويناء قيامه أيها اللي جارايا مرك علامة داس وين منتهي أول من سودجين مال ما كمين أن تذكر مرك النول الجوجا دادم بجوجي دونا ورك هذا سير سلح مريان وادو جدان هذا السوشيال ميديا وذا بوحب وحبنا كرتبه إنه جوج نبا إنه اللي هذا وردك دق نبي عيسى سودجين marka haduu nabi ciise ugu soo dago yaani wa aakhiru zamankii oo si dhamaan raba quraankeena wa innahu la ilmun li saa'ati saa'ada qiyaamo ogaal u yahay fala tamtarun biha ka shakinina wattabi'uni hada sirat mustaqim jidka toosana waa kaas yaani quraankeena wax walba inoo sheegay nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayk marka raali hada waan ku dheereeyay waa qisada iyo arrimaha ku saabsan iyo miilaadka waxyaabaha ku saabsan inaad sahay ku qaadataan oo iskaga celisaan kuwa aan nabi ciise raacsaneen laakiin iska dhigaaya in nabi ciise raacsan yihiin inaad dhahdaan annaga idinka xigna xayal nabi sallallahu alayhi wasallam markuu madiina tagay oo ayaga yoom aashura yahuudu soomaay markuu arkay wuxuu ku yiri maxay tahay sababtu waa maalintii waxay dhaheen nabi muuse la badbaadiyay fircoonna la halaagay annaga ayaa idinka xignu dhahay nabi muuse annaga ayaa isku meelnahay nabi muuse markaasuu hal la soomo sidaas la mid oo kale day nabi ciise dhahan annagu nixigaa oo sheegtaan waa inaan dhahno may raali ahaada nabi ciise isku jid ma haysaana waad garab marsantiine nabi ciise jidkiisii iyo arintiisii annaga hayna rumaysan waxa uu yahay naqaana idin sheegayna saad ku badbaadi lahayn sidaan ay tahay kaalayna soo raaca hadaa saa ugu sheekaysan waxa laga yaabaa dad ayaa kamid ah inay inta xaqiiqada fahmaan in badan oo soo islaaman hadda diinta islaamka alxamdulillah waa diinta maanta ugu badan ee dadku soo galaan diin ka horeysa ma jirto tira ahaan kristaanka ay naga badan muslimiin hadaan nahay laakiin soo gelitaanka maanta diin la soo galaayo diinta ugu badan ee ay dad soo galaan waa diinta islaamka caalamka oo dhan marka la fiiriyo marka inoo nicmadaas haysana waxa loo baahay marka inaan ka faa'iideysano hadii adiga sababtaada ilaahay hal qof ku soo islaamiyo geela gudgududan iyo adduunyada dhan ajirka aad ka heshid ayaa ka badan marka qof walba isku day midka aad dariska la tahay kaad isla ganacsataan kaad wax isla barataan dhalinyarada in aad ku dadaashid inaad saa u fahamsiisido aad soo islaamsi ilaahay subxaanahu wa ta'ala tawfiiqeena waafajiyo ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala intii nimta Allahu naxariisto وهذا يقدم بيسي مؤذنك شيخ عبد الرزاق إبراهيم سدوه دي ودمتي وهذا التعسيد دي بقى يتعالو إلهي هو نحريستو إلهي هو نحريستو إلهي هو نحريستو إيه الكي قرار صبر الله كسيو مسلمين تقود أهان أنت اللي بتعالى هو نحريستو
inta noolna allaha muraadkooda ha sahlo inta xanuunsan allaha caafiyo ubadka allah inoo barbaariyo diinta islaamka allah inugu dilo cizatul islaam allah soo celiyo dadka muslimiinta allah walaaleeyo allah mideeyo caalamkaas oo dhan uu u baahan yahay diinta islaamka ilaahay qulubtooda u furo si diinta ay u qaataan sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh